waftigu hogaaminaya ugaaska beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Roble ugaas Toodi oo ku jira maalintiisa afraad safarkan kormeerka ku maray gobolada Awdal iyo Salal ayaa nimanka ka baxayna magaalada Saylac waxaan u sii jeednaa magaalada Lughaya waxaan joognaa iminka qafiirka magaalada Saylac halkaana waxa isku urursanaya baabuurtii kolonyada faraha badnayd ee ugaasku hogaaminayay iyadoo halkan jiida ay joogaan dadkii ugu horeeyay fadhiyaan baabuurta ugu horeysa waxa kamid ah odayga haliyeega caanka Ibrahim Magan Nuur Duule iyo odayaal fara badan oo iyaguna waftigan hormuudka ka uu ugaasku hogaaminayo baabuurtiin halkaas istabadaxan tahay waxaana la isku sugayaa kantaroolka magaalada Saylac waxaana loo sii jeedaa magaalada Lughaya safarkuna dib ayuu sii noqonayaa markaan soo dhameynay gobolada iyo xeebaha gobolada Awdal iyo Salal dhamaantood imikana waa salaadii subax markii aan tukanay iyaan ka sii jahaysanayna halkana wax ka socota qaban qaabadii oo faraha badnayd baabuurta kolonyada halkan ilaa iyo magaalada Saylac ay ku jiraan waftigan lixaad kale ugaasku hogaaminayo oo qabsoomay hawlihiisa intiisa badan oo dhan magaalooyinkii iyo degmooyinkii aan soo marro dhan khudbado ay ka soo jeediyeen waftiga xubnaha la socda iyo ugaasku oo gabagabada oo dhan hadlayay dadkana u ducaynayay lana dardaarmayay dhalinyartii beesha Samaroon oo joogta xeebtoodii Lughaya ee looga dhisiyay dekada mustaqbal ku fikiraya tahriibtii ka joogaya inay shaqaystaan go'aan ku gaaray waayo halka waxa ka muuqda in mustaqbal iyo shaqo ay ka soo socoto sida awgeed dadku wax soo bartay iyo shaqooyinka u diyaar tahay shaqaysan lahayd waxay ka shaqeeyaan lahaa ayaa maanta inay shaqo halka ka helayaan ku rajooy sida awgeed farxad baan qabnaa xabaliyaan leeyahay joogday waa bishu hamisa maanta bishu hamisa colonel comment vas-tu aujourd'hui la vie c'est dur la vie c'est halka joogtaa maanta anigu waxaan joogaa Lughaya halkii ahligeen ku dhasheen badii u macaanayd ee ugu qurux badnayd iyaan joognaa inkastoo qurbo ka nimadan dhulka aad u garanayn is life dunida eega waa heestii loo qaaday ugaaska beesha Samaroon iyo erayadii Maxamuud Cabdilaahi iyo codkii laxankii Guulee Dayax miisigii Yuusuf Sheekh Muumin Ibrahim Subxaayo halkani waa barxada weyn halka la rabo in dekada weyn ee laga dhigo ay yeelanayso magaalada Lughaya halkana waxa fadhiya gudigii uu hogaaminayay ugaaska guud ee beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Roble ugaas Toodi